kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal idilkeenba sida aad u dhantihiin kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii kulanka Garyare oo hadahayo kale aad ka daawataan telefishinka caalamiga Universal xarunta uu ku leeyahay wadanka Holland. barnaamijkan oo toddobaadla ah had iyo jeer waxaanu ku soo qaadanaa qodobo kala duwan waxaana qodobka ugu horeeya aanu ku eegnaa hadba arrinta aanu aragnay inay bulshada Soomaaliyeed ay u tahay muhiim inay ku gorfayaan barnaamijkeena kulanka Garyare iyadoo qaybta dambe ee barnaamijkana aad ku maqashaan xubintii ila hadal iyo saaxiibkay Bob Laqas ee tartankii dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku tirtami jirtay aqoonta guud iyo halka ay ka joogaan afka Soomaaliga. waxaana barnaamijka toddobaadkani aad ku maqli doontaan qaybta hore waayahanba waxaa soo badanayay caqabado soo wajahaya dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool wadanka Netherland marka ay rabaan inay u socdaalaan wadamada kale oo ay rabaan inay ku gaaraan iyagoo haysta sharciyada dalkan ama gaar ahaan dalka Holland kuwaas oo iyaga looga shakiyo inay xiriir la leeyihiin ururka Al-Shabaab ama ururada kale ee argagixisada ay u aqoonsan yihiin wadamadan joognay ee reer galbeedka. haddaba arrimaha noocaasi ayaa waxaa wadanka Netherland ay ka soo cusboonaatay tan iyo sanadkii 2011 oo markaasi loo xiray dhalinyaro Soomaaliyeed iyo odayaalba oo iyaga looga shakiyay inay fal argagixiso sameyn rabaan balse markii dambe lagu waayay. waxaan imika aan barnaamijkeena ku lafaguri doonaa bal sida ay saameyn arrintaasi ugu yeelatay dhinaca socdaalka shacbiga Soomaaliyeed ku nool wadanka Holland. barnaamijka waxaa marti igu ah saaxiibkay marna gudoomiyaha dalada Soomaaliyeed ee Efsan ee la yiraahdo Xuseen Qadiib. waxaana barnaamijka isagu uu inoo yahay shakhsiga toddobaadka ee ka jawaabaya su'aalaha barnaamijka lagu gorfaynayo. waxaana la socon doona oo aad daawan doontaan xubin kale oo aragtida dadweynaha oo aan ku booqanay qaar kamid ah kaabamka ay ku jiraan dhalinyarada Soomaaliyeed ee imika dalka timid ay ka soo hayantay gudaha dalka Soomaaliya kuwaas oo iyagu laftigooda sheegaya sida ay saameyn ugu yeelatay tuhunka dhalinyarada Soomaaliyeed laga qabo ee dalka yimid. ku soo dhawo marka hore saaxiib Xuseen. aad ma santahay saaxiibkay Garyare. waa ku soo laaban doonaa Xuseen Qadiib ee barnaamijka marti noogu ah waa gudoomiyaha dalada Soomaaliyeed ee Efsan. aan ka hormariyo qodobka aanu ka hadlaynay ee ah sida ay dadka Soomaaliyeed u arkaan culayska ka soo wajahay dawladda wadanka ka jirta ee ku aadan tuhumada ay ka qabaan dhaqdhaqaaqa dhalinyarada wadamada kale raba u safray xilliyada fasaxa inay u socdaalayaan gudaha dalka Soomaaliya oo ay ka qaybgalayaan amaba ka barbar dagaalamayaan kooxda Al-Shabaab. waatan ee ila daawada ra'yiga dadweynaha. shabaab dagaalka ay joojiyaan nabad ay ka dhigaan wadanka aan dib saa ugu laaban waa jiraan waliba waxa maqalnaba mid la raasanayo oo lagala baxay kaam aan maqalnaba sida na soo gaartay oo Al-Shabaab ka tirsanay dadkaas waxaan arki lahaa inay ka wantoobaan waxyaabaha wixii nabad ku socdo jidkii nabadda ay ku socdaan aan arki lahaa ee jid qaldan ay samarin anaga arinteen naftirkeena waa na soo gaartay arimahaasi ilaa hadartaanba waxaan cabsi ka qabnaa in sharciyadii hadda aan sugayna xataa noola diido oo sharci markaan u qaadano oo haddana dib aan ugu laabano wadankii oo qarxis meesha ka sii bilaawno dhalinyarta dhanba hadda indhaha la fiirsanaya dhalinyarta dhanba fikirkan waxaa ka dambeeya odayaasha ka dambeeya oo Al-Shabaab sheeganaya ka dambeeya si oo dhalinyartii ay isqarxiyaan oo wax kasta ay suubiyaan waxaas waa laga fiican yahay inay ka wanto waa fiican waxbarashada kor loo qaado diintana ma aha diin oo dagaal ma aha waa diin nabad mana maqlin wiligeena qof isqarxinay hadda noogu horeyso ma fahantay والله أرنتس وأرن جرتها وحلا أركي يعني لقي هي مركا يعني نسيب حموة إذا أنا وأرن آدي أطلع حماد ضدك هاي أدي شيء تأسكر حسيت وحدين تكون ما أهن رنتي وآدي أطلع حماد رنتي والله هو دب وين دبتو وحويان ضدكني ضدك لا يا أديك سنة يا تاسنا ونكحنا هاي تان سومالين هاي ولي جيت سومالي لقمة مقال لقمة أرك دبكا سوكله dadkan in anba wadankan Yurub anagu waan joognaa waxaan u maleynayaa dadkan waxa daroog baa lagu mudayaa qofkii maskaxdiisa saaxiib noqonaysa marka moogtaa waxa weeyaan dad aan ogolayn dalkeenu inuu dhismo maanta Soomaali ay cagahayga isku taagto dadaan ogolayn weeyaan maanta cadow fara badan baan leenahay Soomaalinaha ka tanaasulshaan leeyahay taas wallahi Holland waan joognaa waan maqalay Mareykan bay ka tagaan baa la dhahaa waxay Yurub tan kale Denmark meel walba la sheegaya Yurub waan joognaa maanta Holland baan halkan ka hadlayna waa Holland wakaas sida xaqiiqda ah ama wadankan Holland qaasato aan ku ognahay anaga ama ka jirta dadka inta loogu yimaado la dhaho dagaal ka gala ama isku dilaahay ma jiraan way dhici kartaa laba qof is qabato oo ayagu ay isu gacan qaadaan laakiin wax ka weyn ma jiraan ma aanan arkin marka waxaan sii sheegay dadka qarxinaya oo dadka bilaa iskaarsada ku dilayo diinta islaamka waa nasteexo sideeda qofa dishidna sideeda oo kas u dishid waa jahannamo ay leedahay waa nasiib daro dhibaatada shalay wadanka ugu soo tagay
ayaa maanta ka jirta markuu aadaya haddana waxaa laga rabay inuu soo wax bartay oo dadkiisa wax u qabta ay ahayd horta ma arkin dadkaas laakiin waxaan u sheegaya diinta sideeda nasteexo saddex cunuga qol ku xiratid aad dhahdeed hebel wuu gaaloowe dila diinta islaamka kama dhisna islaamka waa sidiisa nasteexo dagaalkii oo ilaa hadda meel oo waxaa joogna meesha qabowga oo baraf ka dhacayo dadkii dagaal ba haysta waa dhibtoonayaan dhibaatada dhammaanay ba haysta wallaahi dhibaato waa dad inta ka tagaan dadkooda iyo dalkooda intay waxtar lahaayeen inta ka soo badbaaday inay dadkii haddana dhib kula noqdaan iyo qarax iyo taxaan nasiib darro waa Soomaalida waxaa u baaqi lahaa dagaalka inay iska dhaafaan masaakiinta iyo dumarka iyo caruurta lagu leynayo dagaalka inay u naxariistaan waa jiraan dad dhalinyaro ah oo dagaalada ka qayb qaataan laakiin aniga arrin fiican ilama arrin xun oo arka qof dhalinyaro ah علشان mustaqbalkiisa iyo علشان mustaqbalkiisa dambe inuu ka faa'iideysto oo wax barto oo wadankiisa علشان oo dagaal ugu taga ma ahan inuu dad caawiyo maan inuu dagaal ugu taga ma ahan waa dad aad u aqli gaaban sababtoo wadankeena anagaba kama imaanin dagaal jiri dhibaato jirta darteed uga soo baxnay laakiin haddii wadankeena deganaan oo lahaa lama ka soo baxnay meelna ma imaaneen dadka inay rabaan inta koraan nolol haysteen inay gadaal u noqdaan dadkooda baabi'iyaan waa arrin aad u falxin wallahi baltaranimo ka badataan aniga leeyahay ma fahanti in dhaqan celin waalidkooda u geeyaan waan wadamada baahan oo kale marka waxbay arki lahaayeen laakiin wadankiyo dhib taagan dhib haddii lagu sii celiyo wallahi xal uma arkaan leeyahay waa qaldan yihiin hadday adigu dalkiisii inuu soo go'o rabaa waa qaldan yahay adigu mana ku taageeri doono aniga hadda adigu ilaahay inaan ka dheeraado ma rabo adigu le ordahaya ka soo dagaalama dalkii anigu indhaha ma aanan saarinin marka laakiinse adigu dadka Soomaalida waa sheegayaan in dalka adigu dad dhalinyaro ayuu tago hadda kuwa halkan jooga qaar waxay u arkaanba filimaan camal oo iska xiisaynaya hatta inta waa arkaan kuwa badan ka baxayo le Soomaaliya aadayna saan ka soo qayb qaadano dagaaladaas ka soo waa xiisaynayaan dagaalkaas iyo xabadaas iyo waxaasay rabaan inay ka qayb qaataan wallahi waa wax laga xumaado laba qof oo isdoomareynayso qofna naftiisa la soo cararayo qofna naftiisa geynayo waa farq weyn ba laba qof u dhaxeeyo waa tahay intaasi aanu kaga gudubno xubintii aragtida dadweynaha ay ku muujinayeen sida iyagu ay uga soo horjeedaan ama ku diidan yihiin tuhunka laga yaabo inuu soo galo dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku cusub wadankan ama kuwii hore u joogay ee lagu adkeeyo ama ba alnasiin fiisiyaasha xilliyada ay socdaalayaan ama joogitaankooda gudaha wadanka Netherland waxaan u soo laabanayaa oo aan su'aalo isla arintaasi ku saabsan weydiin doona saaxiibkay gudoomiyaha dalada Soomaaliyeed ee Efsan Hussein markale ku soo dhawo waad maasan tahay wad arkaysay sida ay dadka aanu ka soo doobnay codadka kala duwan ay u hadlayaan bal ka waran arinta noocan ee saameynta ay leedahay Soomaalida wadankan marka hore aad ugu maasan tahay gareer adiga iyo asxaabtaada Universal arintan waa arin horta nagu cusub wata oo sida la socotiin sanadkii dhamaaday waatay arin yar terroristayna soo gashay argagixisada wata si kastaba ha noqotee ilaahay maadiis waxaa cadaatay in Soomaalidii la xiray inaan dambi lagu soo eedeynin waxba lagu helin waa dadkii meeshii lagu xiray magaalada Rotterdam ay ugu weyn tahay iyo dhowr kale kala duwan wata taas waa mid kale aadna maalmaha nagu soo korortaa waxay tahay maadaama dadkii ay Soomaali aan nahay oo socodkeena badan yahay in ay bilaabato tuhun ah qaasatan dhankan al-shabaab nooga yimid oo ah dhalinyarada meesha ku kortay ama dhalinyarada hadda timid sharciyada qaateen oo rabaan inay reerahoodii ehelkoodii ka maqan soo boqdaan in culays la saaro ayna u badan yihiin dadka daadooda yaryar tahay marka sinyaalada noocaas kale markay nala soo gudboonaadeen wax sax oo miiska lagu saarayo ma jirto laakiin dagaal hoos waa jira ku saabsan al-shabaab tuhun laga qabo maadaama ay leeyihiin dhalinyarada westerka ku koray ama westerka dhowr sano joogeen inay dib ugu laabanayaan wadankii oo dadka isqarxinaya ay ka mid yihiin ayaga markaad fiirisid waxa tahay gudoomiyihii dalada Soomaalida ay ku midaysan yihiin badi 56 I think inay yihiin ururada ku midaysan daladaasi bal wada hadallada dawladda markaad u tagtaan
arrintani aad kala hadashaan ilaa dad baa la xiray oo u doodayseen sanadkii tagay maxay idin leeyihin markii aad fiirisid soomaalida waxay ka aaminsan yihiin arrimahan oo kale ma saddex qaybood aan u kala qaadno Waata. intii uunan soomaalida intaana la xirin soomaalida intaana la xirin fikirka ay ka qabeen waxay tahay soomaalida wadankan joogto integrationka inuu ku adag yahay isdhexgalka waata ay yihiin dad dhib badan sida loo gaari lahaa waata markii ummadii la xiray dhinac kastaan dagaal ka bilaabnay waata si kastaa ayaan dood u galnay ilaahay mahadiis saaxiibadeen la xirxiray oo soomaaliyeed waxba laguma soo cadeynin waata midii oo runta ah oo in laga leexanin ay tahay waxa waaye qof walba soomaaliya la xiray waata annaga mar walba urur ahaan marka aan dowladdu sheegaynin waxaan dhahinay 12 qofood maada xirne 30 qofood Soomaali ayaa xirteen waata oo ma aha kaliya ninka la xiray ayaa la xiray ka banaanka joogana mental ahaana loo xiray waata mid way garaysteen oo waxaad moodaa berihii dambe in ay dowladda si kale arrinta u qaadatay waata laakiin qaadashadoodii waxaa ka hor istaagay walaacan al-shabaab waata oo dardar badan soo geliyay waata awal ayaga naftigooda dowladani ayagoo qaadashada culays ka qabeen midna waxay ku leeyihiin waa dad wax lagu tuhmay oo qalad laga galay qaladka laga galana waa laga raaligeliyay waata taas waa mid waxay ku leeyihiin wadankeena anaga sharciga ka jiro sharcigaas ani adiga waa inaan u sinaanaa waata qofkii wax looga shakiyo waa lasoo qabanaa waata maxkamadda la geynaa waata haddii lagu waayana dee naga raali noqo waxba lagu waayo waayo markaad wadadeeda yaa marnay waata mid dad al-shabaab ah al-shabaab waxa waaye waxay ku leeyihiin waa wax mugdi noogu jiro qof walba oo aan ugu shakinaynan waa inaan si fiican loo filtray garayaa marka dhibaatadaas ayaa jirto markaad fiirisid doodan ah wadanka sharcigiisa waa loo sameeya waa run in loo siman yahay fal lamid ah falkan hadda soomaalida lagu xiray sanadkii dhoweyd ama culayskan imika saaran dhalinyarada soomaaliyeed ee dadka hadda aan daawanayna aad arkay sida ay uga cabanayaan ummado kale uu saaran yahay ma jira oo wadankan jooga haddaad u kor gashay adigu culays noocaasi oo kale aqoomiyadaha kale ma saaran yahay waxa aanan hubin laakiin maqaalo nagu ah in qoladan afghanistanka oo kale ayagana ay ka jiraan yaryar noocaas oo kale ah waata laakiin maadaama hadda ay soomaaliya ay noqotay meel oo go-an waata oo hoygii loo baxsanaya ay tahay waata baa wadan walba oo Yurub iyo Mareykanka ay tahay wax taarget oo u saaran waata oo qaasatan Soomaali kaliya ma aha in dhalinyaradan kale oo muslimiinta ah hataa adduunkaas uu jiraa laakiin adiga dhibaatada zaidka kuusii dheer waxay tahay hoygaaga waa meesha la joogo waata maadaama Soomaali tahay aad ka soo qaxday wadankii oo Soomaalidana diin jaceelka lagu yaqaano waata markaad fiirisid arrintan tuhun ha jiro laakiin wax cad markaanu ka hadlayno ma jira waanu garanay wadamada ingiriiska waa la sheegaa wadanka mareykanka waa la sheegaa meelo kale inay dad inta ka laabteen denmark waan maqalnaa sweden sidoo kale holland ilaa iyo hadda markaad la hadlaysaan dowladda idinku afka soomaalida ku hadlaya ilaa iyo hadda ma ka haysaan wax cad kolley warbaahintu kama maqal dad holland soomaaliya oo halkan ku dhashay ama ku barbaaray oo halkan inta ka tegay gudihii dalka soomaaliya falalka argixisada al-shabaab oo kale ka wada may taas waa waxa anaga maalin walba aan ku dhahnaa yacni Soomaaliya dad badanaa jooga oo wadamo kala gedisan ah waata oo even haddii uu yahay dhalashadiisa Netherland qasab ma ah inuu Soomaaliya Netherlandkaas waada wuxuu noqon karaa Moroccan Turkey buu noqon karaa Iraq buu noqon karaa nooc walba noqon karaa maxaa ula jeedaa warkaas waxaan ula jeedaa waxay tahay waa inaan kala saarnaa in dowladda markaa wixii aad kala hadlayso waxaa fiican qofka Soomaaliga ah wax ku sheegaysa Soomaali waan isnaqaanaa noo sheeg markaas shalayto markuu Soomaalida dhib ku haysay arag raadintoodii habkay Soomaalida dad ku dhex galaan anaguna soo kol gareynayo moogta wadhahay Soomaalidii baa la la'yahay xaggee baa Soomaalida loo maraa waata maanta ujeedada hadday tahay Soomaalidii baa tuhun baa jiro waata concrete kan wax tuhun ku jira anaga Soomaaliyana waan isnaqaanaa moogta waata
wax concrete lama hayo waata laakiin cabsida jirtaa waxay tahay maadaama dhalinyaro cusub soo galeen oo wadankii dhowr iyo 10 sano kusoo barbaareen ay tahay oo dagaalkan yaqaaniin laakiin adaa saxsan xuseen warkaan kaa dhexgalo aanu goosgoosanay hadalka dadkii maalin dhaweed la xirayay sanadkii tagay ma ahayn dhalinyaro cusub waxay ahayd dadkii halkan ku gaamuray dadkii ku xidiidaystay sidaadoo kale marka dhalinyaradan aad ku celcelinayso maxaa ku jaban idinkaa la idin haystaa dadkiini hore haddii si loo dhigo waa warka meesha wax midda hadda anaga culeys nooga dhigaaba waxayba tahayba dadkii hore waa sida soomaalida tiraa budo gooni u tuma waayo waaga dadkii hore linki waxaa soo galay oo been ah waaga nin ganacsato ah oo iska shaqaysto canshuurtii dhiibo baa waxaa la yiri linki oo waxaa jiro argagixisa ah waaga ayaga taasi ma hadal wadaanba wayba dhamaataba waa isku dhamaatay waxay leeyihiin taasi waa ficil dhacay oo qalad ah waata berita haddii uu yimaadana sidii oo kale u dhacaya waata laakiin markii oo qofka maxkamadda la yimaado wax lagu waayana sidaan ku xaal marin lahayn wadada loo maraayaa u maraynaa ayaga taas geed kuma gambanayaan waata waxay ku leeyihiin badbaadadaada iyo badbaadadeeda ku dhisan waxay ku wada jirtaa inaan haddaa tuhun iyo kaa soo galo ku qabto haddii duhun kaa soo galo dad baa askar baa joogto sharci baa jiro sharcigaasaa la maraya haddii aa iga gar heshidna waa adiga iga saxsan haddii aan kaa gar helna maxkamaddaan ku geynaya waa tahay laakiin midda cusub oo waxay tahay soomaaliya al-shabaab baa degan al-shabaab al-qaa'ida kamid ah qaybo kamid ah soomaaliya qaybo kamid ah waayo soomaalidu waa reer guuraha dad sii socda waayo dad hadba dhinac dadaan marka wadankan way banaankay la yimaadeen cabsidaas inay qabaan waata laakiin waxaa jira wadamo badan oo reer Yurub ah iyo Mareykan oo tuhunkaas la qabaan waata wadamada kale waxay nagu sii dheerin waxay tahay dad kamid ah dhalinyaradooda ayaa laabtay maadaama Holland hadda sanooyin u dambeeyay ay soo galeen ummad badan oo Soomaali ah una badan dhalinyaro waata cabsida zaa'idka jirta taas waata ay leeyihiin from day one aan bilaawno sida screen iyo aan process ula socon lahayn waata inkastoo oo aan la inkiri karin Soomaalidu waxyaabo badan oo laga yaabo inuu raadku soo galo oo tusaale aan usoo qaadan karno waa dhaweyd nin kamid ahaa dadka qaxootiga halkan kusoo qaxay laakiin markii hore haystay sharciga waddanka Mareykanka oo gudaha dalka Soomaaliya siday sheegeen ka soo dagaalamay baa jirtay isaguna lagu qabtay xero ku taala dhinaca Nisfoolo meel u dhow Toronto I think in la dhaha umaleynaya sidaan filaayo marka inkastoo hadda kaasi loo wareejiyay markii dambe dawladda Mareykanku ay la wareegtay aan u soo laabana Soomaalida idinku daladii Soomaalida tihiin culeysyada faraha badan ee dadka Soomaaliyeed haysta oo ay u noqdeen haddii tuhunba yimaada xalaq Mareykanka u sahlan qolada ugu sahlan ee la gaaro ama lagu qaado tuhunkaasi maxaa u qabataan horta anaga haddii aan Soomaalinahay dhibaatooyinkan haysta ayaa iska badan ha noqoto dhowr noocayna u kala baxdaan dhibaatooyinka midda anaga aan u qabanaa waxay tahay khaasatan processka qaxootinimada markii la dhaho Soomaalinimadaada macato soo cadeey midda anaga aan aad uga dheelinaana waxay tahay inaan Soomaalida loo kala reebin south baa ka timid iyo north baa ka timid waxaan aaminsanahay in aan nahay Soomaali Soomaalina waa reer guuraa marba meesha nabad ka jirtaana loo wada guuraa sidaa maqasheen maalmahan dambe dawladda tani waxay bilowday inay dadka kala socdo waa wax anaga qaladkeena waxa anaga barnay kala socdo marka tira dad badan wax laga yaabaa inay naga daawanayaan gudaha dalka Soomaaliya waxa ula jeedaa kala socdo waxaan ka wadaa markii oo sharciyada qaxootiga oo kale oo la leeyahay adiga South ka timid Central adiga waqooyiga ka timid gobolada dhexe ka timid Puntland ka timid koonfurta ka timid anaga taas khaasatan ururkeena iyo maamulkeena mowqif cad ka qaadanay dawladana way ogtahay Soomaalida waxaan ku dhahnay waa reer guuraa ninkii shalay for example maalinta dhaweyd uu soo qaadana waxaa kamid ah ninkii reerkiisa Muqdisho dagaal kala soo cararay oo waqooyi yimid oo 6 sano 7 sano deganaa markuu soo dhoofo kuma dhihi kartid ninkaan waqooyi waa how you know inuu waqooyi yahay markaas wiilka halkan joogo 5 sano oo saadku wadankan degan lahjada wadankan luqadeedu ku hadlaya waxa laga yaabaa inuu isla markii gobolka luqadiisii oo la qabsado
ama ab ka abba uu meesha iska deganaa exactly waa sax marka ayagoo taasi u jeedo haddana waxay isku dayayeen inay ka gashtaan ookiyaal waa tahay ujeedadoodana ma aha inay wax rabin laakiin ujeedadooda waxa waa target bay wataan waa tahay sida wadankan hadda dowladda haysato ayaa wuxuu heshiiskooda yahay maalin dhan baa xuseenow yaanan horboodina program iyo barnaamij dhan baanu ka samayn doonaa habdhaqanka wasaaradda cadaaladda ama u qaabilsan sharci bixinta waan usoo laaban doonaa taa barnaamijka qaybtii hore aan usoo laabano marka laga hadlo dhibaatooyinkan dhinaca tuhunka argixisadu wax sahlan ma aha baryahan waa waxa keliya oo la isku eedeeyo waa waxa keliya oo looga dhigto ujeedada qof muslima marka ummadaha kale adduunka la fiiriyo taasoo kale markay timaado maxaa samaysaan idinku jaariyad ka dalad ahaan waxa aan sameynaa waxay tahay waxaa mar walba raadinaa midnimada soomaalida waa tahay waxaa mar walba iskugu yeernaa soomaalida wadankan joogto waxaan u sheegnaa habkay wax u jiraan waa tahay waxaan dhaafsiisanaa fikrado waa tahay waxaan tusinaa habka aan jecelnaha inaan wax u qabano si ay ownership ka naqdaan processka waa tahay of course dhowr iyo 10 qofood Soomaalidaas oo keentay kulligood isku wada ra'yi ma waa tahay laakiin mar walba anaga maamulkeena waxaan tusnaa in oo ay muhiimad tahay wadajir baan wax ku qaban karnaa muhiimad ma aha in saaxiib wada naqano laakiin waxaa muhiimad noo ah Soomaalinimada inay naga wada go'an tahay oo meel isku soo wada jeesan oo aanan isku fiirin kaaba xagga ka yimid ama kaaba shalayta wadanka joogay meeshaan aan joogno hal meel baan ku wada qalanahay dhibka yimaadana inaan u wada istaagno oo isku si maadaama oo maanta aniga mas-uulka ahay Britain kala qabanayo laakiin mas-uuliyadda ma aha dad baa hoos noo haya aan jiifanay mas-uuliyadda waa inaan isla wada qabanaa oo aan naqanaa dad isla wada jiro si wada jiro oo qabanaya waa tahay markaa fiirisid arrintan aad ka hadashay midnimada Soomaalida waxaan arkaa in badan matalan markaan soo qaadano maalintii dhalinyaradii ama dadkii Soomaaliyeed la xirxiray sanadkii hore qaarkood la soo daayay markaa lagu shirkaad ku qabateen Rotterdam dadka tiradooda waxa lagu sheegaa 30,000 iyo ku dhawaad ama ka badan in halkan ku nool yihiin Soomaaliya tiradii Soomaalida maalinta meesha joogtayna kama badnayn sidii aad ogeydba 50 qof oo Soomaaliyeed marka Soomaali iyo midnimo xagee kala joogaan miisaankee saar leh sababta maalmahaas oo kale waa in la muujiyo shucuurta dadku ay ka leeyihiin maadaama iyagu yihiin waxa si qalad lagu xirayo waa horta meesha su'aal meesha ku jirto waa maalinta Rotterdam horta waa runta konta qofood ay joogto waa maalin emotional ah maalin oo markii hadda la wareysay waa maalintii maalmaha inta maamulkan aan haynay ahayd maalintii oo waxa runta ay dhacday oo ku taabanayso qorshe walba Soomaali ah ku xanuujisay waa taa of course waa dareemi lahayn inay intaas in ka badan waa jeclaan inay timaado waa taa laakiin somehow waxaa timid 50 qofood waa taa akhtar hadda gadaal markaan u fiirino waxaan is dhahnay okay may Soomaalidii waa taa xanuunkii uuna wada gaaray xagee bay umada jiraan waa taa marka dadka qaar baa waxay dhaheen maalinta Rotterdam qayb baa timid habeenkii dambe oo danaaq lagu dhigay qolo kala timid dhowr iyo 60 meeyaa timid waa taa marka waa su'aal meesha ku jirto sometimes duruufa ma karto sax wadankan dhibaatada noogu badan oo noogu haysata waxay tahay wadankii oo dhan baa lagu firdhiyay Soomaalida waa taa meesha ay wadamada kale Yurub ay ka yihiin qolo meel uu wada degtay leedahay malaha qaarkood meeshan waa xamar baa Hargeysa ama waa laga yaabaa in justification u raadinayo dadkayga ma jecel inaad dhaw waxan yihiin waa taa dadaal bad ku raadin laakiin waxaan rabaa in wax runta la isku sheego si dadku dhaliishiisa ay u helaan aan u soo laabtay isla daladiina marka dadka qaarkood la fiiriyo amaan ma wada lihidin dhaliishuna meesha kama marna bini aadan baa taa qofkii wax qabanaya wax uu qaldaya qaar baa waxay yiraahdaan daladaha ama ururada Soomaalida halkan ka jira seminaarun bay qabtaan shirar iyaga u gooniyay qabtaan waxa la yiraahdaa afsan markaa maqashid gudniin baad maqashaa qola tiraahda sida matalan meelaha ay ku mudaharaadayaan qaxootiyada ay dhibaatada ku haysato oo inta badan isma soo taaga Xuseen Qadiib oo kale kuwaas maxaa leedahay ku daawanayaan kulli
wallahi horta aad ugu mahadsan tahay garyare markaas markaa maamul haysid maalin walbaba kritig hadaadan kritig la-aan wax laguma seexi karo waa sax mid waa aaminsanahay aniga iyo maamulkeenaba wax waa soo qaldanay waa sax beritan waa si wax kale waa qaldaynaa waa sax laakiin hamigeena wuxuu yahay maalin walbaba wax toosiye aan mid usoo laabto gudniinka waxa waaye one of waxyaalaha qaarkood aan sameyno the reason gudniinka oo banaanka looga arka ayaa waxay tahay waxa ugu weyn dalada qaba ma aha ma dhihi karo laakiin waxa weeye waa waxa ugu weyn oo Soomaali hadii aan nahay na taabanayo waa tahay maadaama uu na taabanayo dadkan cadaanka ah uma baahna inaan u sheegno gudniinka dhibaatada uu leeyahay waa tahay waa inaad dadkaaga u sheegtid waa tahay maadaama u baahan tahay dadkaaga inaad u sheegtid waa inaad kanaalada dadkaaga ay dhageystaan kala socdaan raadiyo waa naqato telefishin waa naqato waa sax waa inaad keentid waa sax marka waa qiyaasi karaa qofkii oo meel kale joogo dhahayo efsan markaan arko gudniin un baan arkaa waa sax wacyigeena ma aha inaan gudniin kaliya qaban waa sax laakiin wacyigeena waxa waaye Soomaali weyn inaan gaarno waa sax oo qof walba Soomaalina oo gaaristu ma gudniin kaliya aad ku gaaraysaa mise meelo badan baa ku gaari kartaa for example hadda programmada oo dhalinyarada aan u qaban oo kale qof dhalinyara oo radio Soomaali iyo television Soomaali nin dhalinyara ma fiirsanayo kaas waa inaad inkastoo aan hubo inaad qabataan maalinta haweenka oo kale haweenka aad u taageertaan maalmaha xuquuqul insaanka qaxootiga oo kale iyo aad arrimahaas ka hadashaan waa qirahaya laakiin way u baahan tahay meelihii dulduleelka jira exactly dulduleelku ka jira laakiin gudniinku wuxuu waaye abaarihii oo kale si wanaagsan wax uga qabateen exactly laakiin markii qofka uu ku great kareenayo macnaheedu waxa waaye anaga hubina siinaysa waa sax waxa waaye waa lagu saxaya shaqa qabanaysa waa sax laakiin waxaan rabaa taawadi to ka badan inaa ay sii qabato xoog sii gali marka sometimes dhalinyarada waxay dhahan Xuseen marka critic keeno waa qosashiin adiga iyo dhalinyarada idin shaqeysa iyo maamooyinka iyo odayaasha maamulka idin kula waata markaas waxaan dhahnaa waxaan dareensanahay markaas inay mujtamaci inay hurdada ka kacsan yihiin waata oo nala eegayo oo nala leeyahay war saaxib wadada meeshaas ka maraysaa dhinacan ka soo mar waata marka maamulka in leelaha ayaan dareemayaa waasa maalin walbana amaanta sometimes waa iska jeclaa laakiin eedana waa u baahanaa le war saaxib meeshaas ka qaladayna waa maxay waasa mid kale oo ku saabsan in la dhahayo ururada sidaanay yihiin iyo sidaanay yihiin qasab waa qof walba bini aadana oo dhan ma jirto waasa laakiin ana midda kaliya mar walba fiiriyaa waxay tahay qofka yiri gurigeygaan kasoo tegayaa oo Soomaaliya wax u qabanaya xitaa haddii uu qaldo waxaa aaminsanahay wanaag buu gurigiisa uga soo baxay waa mid aniga igu jirto laakiin haddii uuna qof noo soo bixin oo wax noo hagaajinin qof noo maqan ma jirto waaya waxaan rabaa inaan hal arrin aan wax kaa weydiiyo iyadoo su-aaluhu gabagaba noo yihiin markaad fiiriso Soomaalida dhibka haysta arrinta barnaamijkeenana ka bixine dhibaatada tafaraaruqa iyo culeysyadan ka haysta qurbaha maxaad u soo jeedin lahayd oo aad waano iyo talo iyo tusaale dhihi lahayd horta dhibaatada horta Ilaahay naga hayo waata tafaraaruqna hal wax baan ugu gudbi karnaa waata haddii anaga oo dhan aan isku duubanahay oo Soomaalinimo naga go'an tahay waasa Yurub baa la joogaa qof walba reerkiisa gurigiisa isku degan yahay waata laakiin Soomaalinimada waa wax intaas ka badan waata waxa mar walbana muhiim ah inaan isku duubanahay waata haddii aan isku duubanahay wadankan aan ku noolnahay wax ka qabsan karnaa waata haddii aan isku duubanahay degmada aad degan yahay qofka ayuu wax ka qabsan karaa waata haddii aan isku duubanahay wadankeena aan hagaajisi karnaa waasa wax walbana waxay u baahan tahay moral waasa sometimes heestan oo Soomaaliya tooso marka la dhahayo qof walba Soomaaliya waa qeyroona waasa laakiin sometimes macnaha iyo waxa ka dambeeya shaqo kuma leeyahay fulinteeda dhaqsan ilowna waasa marka goobta laga tago marka midda kaliya aan dhahayo waxay tahay Soomaali qof walba Soomaaliya wuu soo khasaaray reer walba Soomaaliya wixii ka halaabi karo way ka halaabeen waa maanta weeyga kaliya noo furna waxay tahay inaan midnimo aan raadino oo aan isku dul qaadano oo aan
qof walba oo aan maamul noo haayana aan maamulka oo noo haaya inaan la qaban aan isku dayno. waa tahay su-aasha kale isla taasaan raba inaan kaa raaciyo marka laga hadlayo barnaamijyada dhibaatada dadka Soomaaliyeed ee haysta halkan ee ku aadan in tuhmo soo galo in looga shakiyo al-shabaab inay gudaha dalka Soomaaliya ku laabtaan dhibaatada qayb ka sii qaataan idinkoo oo ka ifsan ahaana ama ummadda Soomaaliyeed ee Holland ku nool ah ma jiraan qorshe aad ku diyaarinaysaa inaad bulshada Soomaaliyeed aad ka wacyigelisaan ama kulamo aad u qabataan kaga hadlaysaan dhibaatadu ay leedahay ilaan dhalinyaro badan baa wadamada kale laga inta waxa la rabo loo sheego gudaha dalka la geeyo kuwaas oo qaarkood dhintay qaar ilaa imika ka safafka dagaalka ay ku jiraan barnaamijyo noocaas ma wadaan waa wadnaa waxaan wadnaa tour oo magaalooyinka aan ku wareegayno socdaal aad rabtaan waad maamulkana waxaan go'aansanay inaa Soomaalida magaalooyinka loo wada dejiyo inaan ugu tagno oo magaalooyinkooda habeenkaas la fadhiisano waxa ka jiro waxa anaga xageena ka socdo walaacyada ka jiro dhinaca dawladda oo aan magaalooyinkooda ugu tagno oo aan la sugin kaliya wacyigelin oo maalin ina meel iskugu yeerno oo wacyigelin taas waa qorshaha hadda noo socdo laba magaalo hadda ka sameeyay mar dhowna naamiqan oo ka dhacaya marka asxaabta saxaafadan oo ku soo dhaweynayna aad baad u yimaadeen shucuurta ina aragtiin qasab waa imaanayna waa u baahanay su'aasha ugu dambaysa rabaa inaan ku weydiiyo waa su'aal kaftana adigana kugu saabsan waxa la yiraahdaa gudoomiyaha dalada Efsan Xuseen Qadiib inta badan horta markuu hadlayo qof furfuran oo bashaasha laakiin qodbadiis inta badan markuu hadlayo wuxuu isticmaalaa banooniga dhinaciinu soo jira iyo banooniga dhinaciinu soo jira iyo idinka saa ka yeeleysaan idinka idin taalay marka bal arintaasi reer isboorti baa tahay nin ciyaaryahan ciyaarta jecel baa tahay ma daawata waxay iska ka tahay meeshii xamar baa dib u xasuusanaysa la arintaas maxay ku timaadaa mar walba banooniga isticmaasho banooniga isticmaalkiisa waxa keenaya horta aniga Bonder aan ku dhashay waa garta Bonder markaa ku dhashayna waa Bonder waa degmo ka tirsan xamar caasimadda Soomaaliya dad baan garanay ma laga yaabo waa kaas marka walaalahayna sportiska ahaayeen waa garta reerka ninka ugu liita aniga ahay ma gaarin Serbia xataa ana ninka ugu fiican ninka ugu hooseeya waa garta reerkana laba nooc ala kala ahay aniga groupka Mushibi ahay reerka intiis kala madbacada ahay waa garta walaalkay xataa madbacada u dheelay waata banooniga taas laba kooxood oo ka dhisan xamar bariisamaadkii exactly waata dabcan still marka xamar aan joognay waa la kaftamaya waa la sheekeynaya macna ma bedelayso Xuseen Qadiib hadii Holland joogo oo chicken iyo chips oo cunay shakhsiyadiisa inay isbedesho waa kii Bonder joogo oo isbeddelada haday waa gar oo maalintiina markii Bonder la joogay Shabeelle iyo meeshaas isbarmuutada lagu cabaay la kaftamaya waa gar oo markii habeenkii luujin loo socdana fiyaadii dhinacaas la maray waa isla Xuseen Qadiibkii ma waa marka macna saas ma sameynayso marka xalada Bonder nimadii baa iga keenaysa wali kelmadayga sideeda aad ma guuraan aad waad mahadsan tahay Xuseen Qadiib inkastoo qurbaha lagu arkay dad badan oo markay xogaay joogaan Yurubtan ama wadamada kale Mareykanka aad leedahay warniyo biyahan maxay yihiin noocan anu macaba iyo saan uma seexday iyo dhismaha chiefkan muxuu yahay Soomaaliya naqanada hal qoran lagu soo wada koray biyihii mulmulada hal iska cabi jiray allow ceebta astur waa qurbaha joogta aad waad u mahadsan tahay waa kaaga mahad celinayaa waqtiga qaaliga ee aad barnaamijka u soo hortay kulanka Garyare oo maanta nala joogtay iyo sida aad waqtiga Soomaalida aad ula qaybsatay ku daawanaysa ugana raariday maskaxdooda sida ay u arkaan ama looga bixi karo dhibaatada dadka Soomaaliyeed haysta kaasina waxa uu ahaa daawadayaal idilkiinba sida aad u dhinteen meel kasta oo dunida ka joogtaan Xuseen Qadiib oo ah gudoomiyaha dalada Soomaaliyeed ee ka dhisan wadankan Holland waxaanu marti ku ahaa barnaamijkeena kulanka Garyare ee toddobaadkani waxaan sidoo kale aan isla aragtidiisa raacinaya wasaga hadalkiisa ugu dambeeyay ahayd in midnimada Soomaaliyeed ay muhiim tahay muqaddasna ay tahay saaxiibkay Axmed Faarax waa film soo saare oo producer waa nin cameraman waxa uu ku nool yahay imika uu joogaa wadanka Kenya waxaase uu degan yahay wadankan Holland waxa uu dhawaan u soo saaray isagoo tagay meel miyi ah oo dadka Soomaaliyeed dhaqan ahaan bay u leeyihiin film 3 daqiiqo ah oo ka hadlaya midnimada Soomaalidu ay leedahay filmkaas oo ay ka dhex muuqdaan imika aan idin saarayo oday iyo caruurtiisii oo wada jooga aqal Soomaaligii iyo xoolihii geela ay ka mid yihiin dhaqanayo odagaas oo caruurtiisa u tilmaamaya hadii hal ay noqdaan inay burburi doonaan haday midnimo muujiyaan ay noqon doonaan kuwa ku guuleysta waxa ay rabaan yaana warka idinku badin filimka iyada daawada
naanida waa laga cabbaa naqroob waa lagu hirtaa nabdoon waa lagu hodmayo nastiin waa lagu socdaa nuunkii kale waxaan lahaa nuxnuuxsada aadanuhu nag ebernaafiyo nusqaan naruuraan kuwa fillayn amana naaliyo tanaad nooc kastoy noloshu tahay nooluhu waa naxash u joog nagaantiyo waar lehene dadow nuxur waana liyo naseexadan iga guddoon ibraahim walaalaha soo waday kaale imaad aab ma fiicantihiin haye xagga usoo jeesa aab ma barideen maxaa ku barideen waxaan inigu yeeray astaxaan hoo ushan adna hoo ushan adna hoo ushan adna hoo ushan kala jebiya aabba kala jebinteeda may fududeed haye tii hore way fududeed tan yaa kala jebin karaa hoo keen adi xoog ma qabtid waa kala jebin wayse hoo waa kala jebin wayse oo haye waa kari wayse waxaad u kari wayse inay xoog leeyihiin hal haddaad noqotiin waa kala jebaysiin ilaa waxaa la rabaa inaad sidan iskugu dubnaatiin midkoo aad ahatiin xoolihii aad dhaqatiin sidanaa la rabaa inaad iskugu dubnaatiin ani haddaa dhinto geela inigaa leh aanay laga xoogin aanay laga qaadanin tabtan aad iskugu dubnaatiin midkoo aad ahatiin sidanaa la rabaa sidan ayaa la rabaa marka sidan iskugu dubnaada yaa nuxnuuxsada aadanuhu nag ebernaafiyo nusqaan naruuraan kuwa fillayn amana naaliyo tanaad nooc kastoy noloshu tahay nooluhu waa naxash u joog nagaantiyo waar lehene dadow nuxur waana liyo naseexadan iga guddoon hagaag waxaan is leeyahay in badan in aad si fiican u fahanteen nuxurka uu gudbinayo filimkaasi soomaaliyey midnimadu waa muhim dhowr iyo 20 sano waxa aan dibadaha ugu daadsannahay dalkeenana uu weli dagaalka iyo dhibka uga holcaya waa midnimo la'aanta iyo qof waliba inuu goonidiisu u rabo waxuusan keligii helin laakiin hadduu midnimo ku doono uu heli karo waxaana filimkaasi soo saaray saaxiibkay Axmed Faarax oo iminka jooga wadanka Kenya gabagabadii barnaamijka ayaanu soo gaarnay waxaa la rabaa iminka inaad ila daawataan barnaamijkii ila hadal qaybtii uu lahaa saaxiibkay Bob Laqas oo isagu ah nin u dhashay wadankan Holland balse ku hadla afka Soomaaliga sidoo kalena ah mid uu ugu qaybinayo laba qof oo dhalinyaro Soomaaliyeed oo waliba wiil iyo gabar ah kuna tartansiinayo afkoodii aqoonta guud iyo dhaqanka Soomaalida iyo afka sida wax uga yaqaanaan Bob adiga le waay gareere waad mahadsan tahay soo dhawaada barnaamijka xubinta ila hadal ee aan ku soo qaajinay tartanka raadinta Soomaalida ee afka Soomaaliga iyo dhaqankooduba waxaa ila joogta gabadh la yiraahdo Hani iyo magaca muxuu ah Prince Garar soma okay waxaan dileeyahay soo dhawaada barnaamijkan okay hada ku bilaabna su'aalaha wax markii la jiido gaabto sheeg مكينة مكان markii la cabayo okay adiguna sheeg wax markii la jiido oo gaabanayo ha taas ma sheegi karo sigaarka way okay waxaad sheegtaa macnaha intaadan falin ka fiirso انت wax sameynin ka fiirso ku celiyo codka kurqa intaan wax sameynin ka fiirso waa sidaas okay waxaad sheegtaa nin xil qaade eed qaade waxaa laga wadaa qof mas-uuliyad qaaday maarata wuxuu la mid yahay qof dadka dhan
oo mas-uulka ah xil weyn ka qaaday sif example taa kusii tusaale ahaan waxaa la wadaa qof maaragtay oo madaxweyne camal ha oo macnaa wax walba inuu dhabarka dusha saartaa haddii noqon laheeda khasaare haddii noqon laheeda faa'iido aad qof walba shacabka inuu mas-uul ka noqdaa qof xil qaaday sax waay aad ba loo eedeynaya qofkaas oo kale wax walba uu filaya sax waay okay waxaad sheegtaa in albaab furan lama galo weji furan la galaa waxaa loola jeedaa albaab furan lama galo weji qalbi furan la galaa qofku macnaha furfuran oo kaftan badan oo soo dhaweyn badan aa loo tagaa qof xirxiran cid u tagays ma jirto sax waay okay waxaad sheegtaa macnaha gacmo wada jir bay wax ku gooyaan gacmo wada jir bay wax ku gooyaan gacanta wada jir markino bay wax ku gooyaan okay mutaqan haddaan ka faa'iidaysto gacmo wada jir waxaa loola jeedaa dad maaragtay si wada dhan bulsho markii ay wada dhan isgarab haystaan ay wax sameyn karaan ay wax walba horumar ku gaari karaan markii lisbiirsado sax markii lisbiirsado sax okay waxaad sheegtaa nin kuu digay kuma dilin nin oo ku dhahay waxaan sameynin wax xun ku sheegin oo kale wina si fasirtaa ma sii fasiri karo okay adiguna nin kuu digay kuma dilin waxaa loola jeedaa qof ku dhahay warniyo waxaa ha samey haddaa samaysid meel xun waa ku urfanaa digniin kale kuma siinin haddaa ku day waxaas aad samaysid isaga waxa ku gaarsiin ana kuma gaarsiin adaa is yaalo waay sax waay waa runta okay labo qaawan isma qaado laba qaawan isma qaado macno badan ay yeelan kartaa waxaa kamid ah labada qof oo lacag aan haysanin ama waxba aan haysanin example markaa ku siiyo qof wadankan ku nool camal oo waxba haysanin maaragtay meel ku nool aan haysanin waxba haysanin iyo qof ayadan gabarsiis camal isma qaadi karaan ayaga noloshooda wax wala asan qof kale marka mas-uulka ma noqon karaan beentama waa sax okay cagtaada wax ka day haddaan ku dhaho maxaa waaye macnaha meesha ka carar baxa sax okay dalan dalkaaga ahayn reem ku joog waaye maxaa waaye macnaha meel aana ku dhalanin joog waxaa waayo ma fiicnid oo kale ma ku fiicnid sax waa runtaa caano aan fiqsi loo dhamin iyo feeraha maxayd caano aan fiqsi loo dhamin iyo hadalka aan fiirso loo oran bay feerahu wax yeelaan maxaa waaye macnaha waxaa loola jeedaa waxaadan ka fiirsanin maaragtay hadalka adhays ama qofkaa la kaftamaysa haddaadan ka fiirsanin hadhow dhibaatay ku keeni karaan mustaqbalka adiga maaragtay waxay ku keeni karaan waa sax waay okay maxaa la yidhaha haddaan ku dhaho haddaad diido hadalkeega habeen wacan nasiibkeega heestaas yaa qaaday waa fankii weynaa xasan aadan samatar waa sax waay okay qufac iyo jecel midna ma qarsoomo maxaa waaye haddaa qufacdid dadka dhan way maqlaayaan haddaa wax jeclaatid waa lagu dareemaa saas waay haddaad wax jeclaatid waa lagu dareemaya daacadi ma hugowdow maxaa waaye macnaha ku celi daacadi ma hugowdow maqaan okay adigu ma taqaan igu soo celi daacadi ma hugowdow daacadii ma hugowdow qofka macnaha run sheegaa daacad ma halaagsamaa ma ula jeedaa dhibaato ma gaarto qof dhibaato ma gaarto sax waay wax ma waysid sax okay kor waa yeel waa wada indho qof oo weyn ah wax kastoo aragtaa laakiin wax kastoo arkaa laakiin maxay la macno tahay marka waa duq aqliyo leeyahay sax waay beenta ma sax waay khiyaano ma libaano maxaa waay macnaha nin oo qiyaamo badan markiisa dambe si fiican muu noolaado saas waay okay waxaad sheegta macnaha in loobo joogay ku soo celi loobo joogay loobo joogay loobo joogay
ma taqaana may waa mid adag waxa weeyaan hadalka dhahaysid waa la arki doonaa inaad samaysaa mid kale okay la dhahi doona la arki doonaa camal ha sax okay mid kale in faynuus laba qolmood iifiso waxaa loo wadaa maaragtay tusaale ahaan markaad nal guri aa ka shidid laba qol ma ifina camal micnaha tusaale waxaa loo soo qaata inta badan hal gabar laba qof micnaha ma kaafi karto saas way okay in shimbir laba geed ma wada daaqdo maxaa way macnaheeda shimbir laba geed ma wada degi karto ma wada daaqdo ma aqaan adigu ma taqaan haddaan ka faa'iidaysto shimbir laba geed ma daaqdo tusaale ahaan waxaa loola jeedaa inta badan loo soo qaataa gabar micnaha la wiil ma shukaansan karto saas way isku dulwadi karto sax okay in adigu waxaad keentay 7 dhibcood adigu maanta si fiican baad yeeshay waxaan ku leeyahay waad mahadsan tahay ka qaybgalnimadaada adiguna waxaad keentay 10 dhibcood abaliga baan ku leeyahay ayadna u sacbay way wanaagsan tahay intaas waxaa ku dhan xubintii ila hadal ee barnaamijka kulan aan dib inuu kugu celiyo saaxiibkeena garyare waad mahadsantihiin waa hagaag boob iyo xubintii ila hadal oo ugu dambeysay guud ahaanba barnaamijkeenii kulanka garyare ee toddobaadkan idinkaga imaanaya waddanka Holland mar walibana idinkaga yimaaday isla waddanka Holland intaasi ayaanu ku soo afmeeraynaa barnaamijka waxaa soo saare ka ahaa anigoo Cabdiweli Ibraahim Garyare ah dhinaca kaamirada waxaa joogay Sayid Cali iyo Cali Daahir Ciid waxaana farsameeyay horseed media tan iyo kulanti dambe iyo barnaamij ka lamid ah inta aanu ku kulmi doono waa Cabdiweli Garyare Bob علي داهر سيدة علي إيو صاحبكي مرتدى نو أها حسين قديم سيدا ينبت قليو يا أمانة الله